aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dil xalay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug loogu geystay 9 ruux oo la sheegay inay ka soo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Gudoomiyihii hore ee gobolka mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dilka uu ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo qaybta maamulka galmudug. saraakiisha ciidanka maamulka galmudug ayaa sidoo kale risaale FM ay la xiriirtay waxay u sheegeen in dilka waa dadkaasi uu yimid kadib markii kooxo hubeysan ay magaalada gaalkacyo ku dileen sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee maamulka galmudug oo lagu magacaabo Cali Deef, isla markaana dadka deegaanka ay ka caroodeen. laba kamid ah kooxihii dilka ay ka carreen waa ay ciirsadeen sida aan wararka ku helayno kooxihii dilka geestay kadibna guri ay ka galeen laga soo saaray 10 ruuxna ay dileen. 9 kamid ah kooxda deegaanka ah ayaa ka careysan dilka sargaalka nabad sugidda ee maamulka galmudug ka tirsanaa. saraakiisha booliisku waxa ay sheegeen in dadkii la dilay aysan weli xaqiijin karin in ay yihiin kuwii dilay ee sarkaalka, isla markaana ay jiraan xubno gacanta lagu dhigay oo ay weli ku socdaan baaritaano dheeraad ah. wararkii ugu dambeeyay ee arrimahan la xiriira waxaan faahfaahin dheeraad ah si aan ugu helno la xiriirnay wariyaha maamulka galmudug deegaanadiisa uga soo warramay Risaale FM Cabdinaasir Saxsaxo oo wararkii ugu dambeeyay noo haya. magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ninka xalay waxa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada mista oo ka soo jeeda dhanka galmudug ilaa hadda sababta lagu dilay loo sheegi karo. dhanka kale banaanka magaalada gaalkacyo degmada hubeysan ayaa ninka xalay magaalada gaalkacyo banaanka waxay ku dileen dad ka soo jeeday koonfur galbeed. sababta ay ku dileen laba sheegi karo ciidamada galmudug iyo weliba kuwa kale daraawiishta ayaa howlgalla ka wada magaalada gaalkacyo. baaritaanada ayaa ilaa hadda laga shaqeeya bilina ilaa hadda meeshii lama aasin banaanka ayuu yaala, laakiin ciidamada ayaa howlgallo aad u ballaaran ku jira kuwaas ay ku xaqiijinayaan dadkaan ka soo jeeda sababta lagu yaayay lamana shaacin karo ilaa hadda, laakiin baaritaanada way socdaan iyo barnaamijyadana dambe ee degeystayaasha mar walba ku xiran ayay toos ula socon doonaan.